wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toordo waxa uu baaq u diray dhammaanba waalidiinta kala duwan ee dugsiyada gaarka loo leeyahay bahda jaamacadu in ay soo bixiyaan fiigii ardayda laga qaadi jiray waxaanu tilmaamay in wasaaradda aan u xisaabsanayn ardayga aan bixinin fiigaasi inta ay lagu guda jiro xanuunka COVID-19 dugsiyadii gaarka loo maamulayay mushaharkooda dee ardayda bixin jirtay iyo kharashka iskuulada marka mar labaad iyo saddexaad waxaan ku celinaynaa jaamacadihii iyo iskuulada gaarka aba waalidiintu waa inay bixiyaan lacagtii marka mar labaad iyo saddexaad waxaan ku celinayaa ardayga aan fiiga bixinin dee wuxuu la mid yahay inuu iskuulkii ka baxay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici ana gudoomiyaha gudida heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta COVID-19 waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan waxbarashada dalka iyo dugsiyada wax kamid ah xagga waxbarashadii waxaan isla garanay fasxi caadiga caruurtii iskuulada ay galaan iskuulada marka bisha 8 dib loo furo marka waxbarashadana go'aankaas ka gaadhnay imtixaanadina qiimeyn baa loo sameeyaa maadaama ay suuragal noqon weydeen caruurtii meel isku keeno imtixaan laga qaado maadaama ay suuragal noqon weydey in caruurta system noo diyaarsan online lagu wada qaadi karaa caruurtii inta la kayd iskuulka koowaad class koowaad laga bilaabay ilaa iyo jaamacad waxaan isla gartay sida wasiirku hore u sheegay imtixaanadina qiimeyn baa loo sameeyaa علمتني القرآن علمتني حب الوطن بتفاني علمتني حب الوطن بتفاني معلمي يا شمعة في الليلة الظلماء معلمي يا شمعة في الليلة الظلماء لك في نشيدي دعوة يرجى بها الرحمن يا رب تجزي من أنار مداركي وكياني في جنة مزدانة بخضرة وأماني في جنة مزدانة بخضرة وأماني معلمي يا شمعة في الليلة الظلماء معلمي يا شمعة في الليلة الظلماء شكرا على نصح به نورا لوجداني شكرا على عطف به صدقا وإحساني شكرا على عطف به صدقا وإحساني معلمي يا شمعة في الليلة الظلماء معلمي يا شمعة في الليلة الظلماء goobaha waxbarashada oo dhan ee lacagta fiiga lagu dhigan jiray waxaan doonayaa inaan halkan ardayda iyo waalidiinta aan uga jeediyo lacagta fiida ee jaamacadaha iyo iskuulada iyo macaahidda laga qaadi jiray waa waajib iyadana in la bixiyo waa waajib marka waalidiinta iyo ardaydu waanaana u qaadan hadii iskuuladii ama jaamacadii xidhan yihiin inaan fiigii la bixinayn waxaan halkan ka sheegayaa ardayga fiiga bixin waaya in
imtixaankiisa aan la qiimeyneyn